السلام عليكم. إن بدن واحد ركتها دتك الصومالي ده أو شعل أو هذا الهية نبت قليو دي بهالشيسين إلا يسفهموا حبت شوتشين إلا وضع هضله أنا وكل وانكو قرات صدا ضد بدن أو هذا الصومالي ده بقولك بس عشان سديتنا ويكو قرات صدين صدن يشن سنة صدن سنة إلا هذا أفرت سنة قدام بيسي Soomaalidu dagaal iyo buuq iyo waxay ku jireen maartay dadka Soomaalida hadda nool intooda badani waxay hana qaadeen maxay ahaatay 35 ilaa 40 sano ee nolosheena ugu dambeysay marka waxa dareemaysaa in had iyo goor nabad laga hadlayo haddana nabad ma hayno had iyo goor dhaqaale iyo maartay barwaaqo in la helo ka hadala haddana lama hayo waxa muhiim ah dadku intay fadhiistaan in la isticmaalo aqoon iyo aqliga saliimka taariikhda iyo dhacdooyinkan in wax ka barano iminka ayaamaha waxa cusub oo aad u dareemaysaa in waqooyiga Soomaaliya maamulka waqooyi bari ee dhawaan laga yagleelay goboladan SSC iyo maamulka Somaliland oo maartay egas Somaliland hadda waqooyi galbeed labada maamul ee waqooyiga oo waqooyi bari iyo waqooyi galbeed inay nabad ku wada noolaadaan dad badan baa ka hadla dawladda dhaxa ka hadasha maamulka waqooyi bari baa ka hadla maamulka Somaliland laftiisa ka hadla waxa ka hadla nimankan kale oo kilinka degan oo maaragtay madax dhaqameed soo diray waxa jira guddi ay sameysay maamulkan cusub oo hadda Somaliland cirra uu hogaamiyo oo guddida nabadgelyada oo ina jirdiyo ay maaragtay u yihiin gudoomiye uu yahay odayo kale hadda waxaad arkaysay maalmahan shalay iyo daraad iyo in la leeyahay maartay maamulka waqooyi bari laftiisa firdhiye iyo waxay sameeyeen guddi maartay wada hadalka iyo bal dadku inay isfahmaan nabad ku wada noolaan karaan waxaad moodaa inta dadku inay wax wadaan haddana wixii wax raandhiis la maaha gobolada dhaxal arkaysa iyadoo inta dagaal ka dhacayaan la leeyahay la heshiisiyo Jubbaland baad arkaysaa Puntland baad arkaysaa markastaba Boosaaso iyo Garowe iyo meel gaalkacyo dagaal ka dhacayaan dhulkan maxay ICC baad arkaysaa Somaliland lafteeda yaani sanaag oo kale hadii gorcolaada ka jira ummadii colaadna way ku jiraan 24 saac nabadgelyo iyo wada hadal iyo xabad joojin iyo baa laga hadlayaa halkee bay iska qabsan laadahay waliga ma isweydiis jawaabtii baan kula wadaagaya dadku marka colaada dhacaan hadii ay ka fikiraan xaaladda marka taagan in la xalliyo oo ay waliba ku xallinayaan arrimo ganacsi arrimo siyaasadeed arrimo doorasho arrimo dad saaxiib iyo urur diimeedyo iyo dad maartay cilaaqaad leh arrimo dad xidida iyo maartay rag saaxiib arrimahooda ay ku toosisanayaan waxa soo dhani nabad ma dhalinayaan arrimo uun xaalad marka taagan oo kaarjabinaho la hakinayo colaada taagan iyo maxay ahayd arrimo shakhsiyaad iyo arrimo maartay marka uun ku meel gaara baa wixii lagu binaynaya markaasay mar walba waxay noqonaysaa colaadii iyo dagaaladii sokeeye in deegaamada gobol kasta Soomaaliya ay colaadii ka sii jirto laakiin hadii marka dadka la heshiisiinayo wixii lagu saleeyo cilmi taariikh iyo aqoon iyo mustaqbalka dambe in maartay nabad la helo waarta dadkii waxay ka eegayaan 5 sano soo socota 10 sano soo socda 20 sano soo socda 100 sano soo socota dadku seebay u noolaan karaan ugu yaraan 5 khuddiya ugu yaraan 5 sano soo socota balse loo noolaan karaa hadii laga fikiro oo aan lagu saleynin arrimo siyaasad iyo doorasho iyo dhaqaale iyo saaxiibtinimo iyo dana maartay gurubaysi iyo wax noocaas iyo cadaadis iyo meel ka soo fuulay iyo waxa hadaad wax ku bilaysid nabad ma dhalanayso marka inta badan dagaalada sokeeye waxyaabaha sii ka dhiga wax jiitama waxa weeye lama la fagurayo tusaale hadda maamulka Somaliland oo kale marnaba isagu nabad kama hadlo inta badan maamulka Somaliland wuxuu ka hadlaa in wadadana loo furo maxaabiistana loo sii daayo laakiin in uu deegaamadiisa ku ekaado in uu gobolka Sanaag hawlaha ka jira ay si dhab loo galo oo ay deegaamadan Sanaag aanan maamulka Somaliland aan dadka taageersan deganeen in amcaha ay meelaha haystaan ama ceergaabaha noqoto qaarkeed haafkeed
ama ha noqoto tuulooyinka ku hareeraysan inay dib uga degaan oo ay dadka ammaan siiyaan gobolka sool oo kale meeshan ooga dariska laga yahay in ammaan laysa siiyo on cidina maaragtay isfarafarayn dhankan buuhoodlo oo kale saas oo kale in nabad dhereeran oo dadka deegaanka oo dhan ah maaragtay cid waliba deegaankeeda maamul ahaan ku ekaanayso ammaan laysa siinayo oo si wacan loo nabdayo oo daris wanaag iyo soomaalinimo iyo islaamnimo iyo lagu wada noolaanayo iyo maaragtay wada noolaansho waxaa kama hadlan Somaliland kama hadlan Somaliland si cad waxay u sheegaan in laascaanood ay Somaliland tahay xataa ma yiraahdaan maamulka waqooyi bari kaliya waxay yiraahdaan bariga sool bay yiraahdaan bariga soolna waa magaalada laascaanood iyo garowe inta u dhaxaysa ilaa inta taleex iyo boocame iyo maaragtay wax noocaas buuro wadal iyo intaas laascaanood marka laga soo gaaro inta u dhaxaysa barigeeda la yiraahdaa laakiin koonfurteeda kama hadlaan waqooyigeeda kama hadlaan maaragtay xaggan hawdka maaragtay kama hadlaan sanaag kama hadlaan buuhoodle kama hadlaan galbeedka maxaan dhahdaa magaalada maxay tahay gobolka sool kama hadlaan maxay yeelay maamulka Somaliland meesha ugu sokaysa ee dhinaca galbeed ay gobolka sool ka joogaan waa magaalada og waa meel 100 kilomitir iyo ka badan 120 kilomitir ilaa 100 kilomitir meel jirta baa ugu sokaysa meel ay maamulka Somaliland joogaan haddana waxaas oo dhan ma qirana koonfurtiisa galbeedkiisa barigiisa gobolka sool kama hadlaan waxay aan barigiisa inta kale waanu weerari karnaa waa qabsanaynaa waxay aaminsan yihiin kama hadlaan nabadgelyada xagga buuhoodle colaadahan ka jira ee badan ee maaragtay ku dheeraana gobolka togdheer kama hadlaan sanaag colaada ka jirta marka waxa weeye waxaad arkaysaa qofkii nabad dhaba oo runa oo in uu deegaankiisa ku ekaado ummadda uu nabadgelyo siiyo oo dadku is ammaan siiyaan damaba ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa arrimaha maxaabiistiisa in loo soo daayo wadadana loo furo si uu ganacsi iyo nolol u helo marka nabadaas maxay noqonaysaa arrimo maslaxadeed oo ragga ii soo daayay ciidan hay noqdeen iyo wadada ii fur aan ganacsade laakiin aynu ammaan siino diris ahaan nababa ka hadlaan sidoo kale in maamulka Somaliland iyo maamulka waqooyi bari ee colaadu ka dhaxaysa inay toos u wada hadlaan oo dhibaatooyinka ka dhaxeeya ka wada hadlaan maamulka Somaliland maba ka hadlaba maamulka Somaliland wuxuu la hadlaa madax dhaqameedka kilinka shanaad iyo Puntland iyo dawladda federaalku inta hoos kala hadla Xasan Sheekh xaggiisa inta soo maray dhahdo cadaadis saar maxaabiista la soo daayay iyo waxyaabo yar yar oo iska maaragtay aan raandis badan lahayn oo moodid inuu maaragtay ciyaarayo jarka boodo waxyaabahaas nabad arkaysa inaanay nabad waarta keeni karin in iska tag waxyaabo la isasirayo waxyaabo la iskhiyaamaynayo waxyaabo kala shaki keenaya waxyaabo nabad waarta aan keenaynin marka runtii cid waliba nabad way ka hadlaysaa maamulka waqooyi bari baa ka hadlaysa Somaliland baa ka hadlaysa cid walba ka hadlaysa laakiin dariiqeedii saxda ahaa cid abaaraysa oo war aan ammaan isa siino oo nin waliba deegaankiisa ku ekaado oo haddaad deegaan ma haysatid dib uga bax oo dadka ammaan sii oo aflagaadada jooji iyo maartay bariga sool iyo waxaad ka hadlaysid lama yiraahdo bariga sool hadday sanaag tahay iyo hadday sool tahay iyo hadday togdheer intay ka degaan maartay buuhoodle tahay war dadka ammaan sii oo haddaad gobolka sool tiraahid basaan hadda idin sheegayay dee bariga sool waa aflagaado weeyaan waa macnaha weey marka koonfurta sool nabad kama rabtid miyaa maxay tahay waqooyiga sool kama rabtid miyaa galbeedka sool nabad kama rabtid miyaa xagee rabtaa macnaha afarta jihaba laascaanood afarta jihaba waxaa ka degan dadkan reer waqooyi bari baa ka degan meesha ugu sokaysa ee Somaliland maamusho gobolka sool waa og ilaa 100 kilomitir iyo ka badan weeyaan marka maxaad ka wadaa marka see yaad la hadli xitaa waqooyi bari marka tiraahdo bariga gobolka sool ina xitaa cidda aad sheegaysid lama garanayo ma boocamaad ka hadli ma halkee ka hadli ma halkee inaha kama hadlaysid miyaa xageed ka hadli I don't know waxa ka hadlayaan marka war dadku inay cid walbana magaca ay leedahay loogu yeero cid walbana maxay tahay deegaankeeda lagu ixtiraamo cidii isfahmaysa ee heshiinaysa iyo cidii maaragtay Soomaalnimo isla qaadanaysa iyo cidii kala go isla qaadanaysa iyo cidii wax isku darsanaysa taas waa another case anu kama hadlayo laakiin waxa war cid walba meesha ay degan tahay lagu ixtiraamo adiga oo is-indha tiraya oo dafdafle oo dadka magacyo kale ugu yeeraya oo dadka dhulkoodii doonaya oo maxay ahayd dadkii aan toos ula hadlayna marba meel kale ka soo wareegaya
in aad haddana nabad ka hadashid waxaas cidina maarta aad aragtaa hadda gobol sanaag oo kale nabadgelyo la rabay nabadgelyo sidii ahayd looma gelin يعني وحوي وحيرو سياسة بيسن أو معركتي جوجل سياسة ده بين نقطة وطبعا ما أنت أي شدن إيه معركتي وقدر إيه ماله بدن تذكر حبضها يسوع يستان إرجاب عد كسر نقطة ماله بيريه الدجنا نبض ما يوضع قاعدة وحي بحب كم تشرب وحوي خرج كوب حي السفر هذا الله قلي ميريها لقى ديني هذا أنا وحي كم صوب حيا حيا لي وحي ده عدل يا جماعة هو عرم السياسة ده يقول صور العجلة كلعونه qof aan dadkii metelin oo oranaya waan metelayo waa waxyaabahaas oo dhan in dadku ay ka fogaadaan aad baan ugu faraxsanahay gudidan uu madaxweynuhu firdhiye iyo maamulka waqooyi bir ay magacaabeen waa wax wanaagsan weeyaan aan wada hadal waan heshiino laakiin heshiis ku yimi arrimo cadaadis iyo siyaasadeed iyo maaragtay xasan sheekh aad ugu mashquulsan inuu maaragtay maxaabiista Somaliland kasii daaya lascanood main ay u tahay wax weyn u tahay isagoo laftiisu arrimo doorasho eegaya oo maaragtay 2026 si dadka reer waqooyiga ah maamulka Somaliland ka soo jeeda ay ugu codeeyaan isaga in uu yiraahdo waxa weeye meesha nabad baan ka dhalinayaa maxaabiistan ka sii daynaya oo si kale taaqodeedu waxa weeye arrimo doorasho weeyaan laakiin dadka meesha degan maamulka waqooyi bari maslaxadiisa iyo nabadiisa inuu ka taliya ka muhiimsan inuu ka fikiro arrimo doorasho dad aad u fara badan baa waxay ku xiran yihiin maamulka Somaliland xiran oo waqooyi bari ka soo jeeda ma aha dad dagaal lagu qabtay kaliya dagaalka ka hor 15 sano ayaa maamulka Somaliland maamulayay deegaamada waqooyi bari dad aad u fara badan bay xirxireen iyagoo dadka ku xirxiraya waxyaabo kala gedisan qaarkood ay ku xireen maaragtay dambiyaad gasheen laga yaabo inaanay gelin qaarna ayba galeen lama garan karo cid cadeyn karta male qaar iska maraya meel ama deegaamadooda ku nool inta la xidhay argaxisaad tahay la iska xidhay qaar dambiye ay ahayn la saaray qaar deyman lagu leeyahay oo dad reer Somaliland inta isqabteen ay xidheen baa jira xitaa oo badan oo anigu aan qaar ka aqaanaba marka waxa weeye ma aha maamulka Somaliland dadka u xidhanay dad dagaalkii 23 lagu qabtay kaliya maaha 15 sano ee meesha maamulayeen dad aad u fara badan oo ay qabteen baa Mandheere iyo Burciyo meelo badan ugu xidhan marka haddii maxaabiis xitaa la soo daarsanayo waa inay noqotaa maxaabiista dadka reer waqooyi bari ka soo jeeda dhammaantood 15 sano meesha xukumayeen dadka ay qabteen iyo kuwa dagaal ku qabteen ba iyo wixii dambiye galayba in ay soo wareejiyaan oo wixii dambiyana deegaamadan ay dambiyada ka galeen lagu maxkamadeeyo wixii ayaan dambi gelin la sii deyn doono oo de wixii marka la baadhay ay run noqotay la kala xukumo laakiin dad baan iska xidhxidhanaya 15 sano oo xabsiga igu jirayaan dhowr qof oo aan ku qabtay dagaalkii 23 baan ku soo deynayaa adigu dhowr boqol ii soo daa kulaama hadlaya waxaan la hadlayaa maamul goboleedka kelinka shanaad maxaan dhahdaa DDS madax dhaqameed ka socda iyo Xasan Sheekh iyo dhinaca Puntland iyo waan soo marayaa marka maxaabiista ICD maamulka dawladda federaalku haddaanay Somaliland ka soo deyn karin maxaabiis inay maamulka waqooyi bari maxaabiista ka sii daayaan de maaha adigu dadkaagu ha xidhnaado laakiin kuwaaga sii daa xamsa 25 boo ka haystay xasan saasoo kale uu rabaa inuu ka dareersado يعني وحيابا نوعاس هدي جودن لما جعابي لو ما جعابي عدالة دولة فدرال كيمي أو فوت صارها لقى دكتور محابيس تسأله Somaliland هلو جسي داي أو Somaliland يوم معمل كي وقوي برينت وده الله وحيي وحسد أفسنا هنا أنت لك حي حمر لقي حمر ديار ده لقى صار هرجيس لقينا يو مركا حمر يوحي شين يا دولة فدرال كاي حمر شوكتي يهرج معمل Somaliland هذوك مركا لما هالشين محابيس نعيدكم مسودين يسوع maamulka dawladda federaalkuna Somaliland maxaabiis kama soo deyn karo marka ma garanayno waxyaabaha soo dhan dabcan iyadoo la ixtiraamayo maamulka iyo system ku marayo laakiin haddana runtii madmadow badan baa ku jira madmadow badan oo arrimo siyaasadeeda iyo cadaadisiyo iyo waxyaabo maaragtay colaadda sii daba dheeraynaya colaadda wax sii daba dheeraynaya deegaankana aan nabad ka sii deynayn kaliya maxaabiista ii soo daa maxaabiista Somaliland sida wadada fur say Somaliland ganacsi iyo access wadada ugu hesho marka maslaxada Somaliland baa laga taliye laakiin maslaxada waqooyi bari maamulkan lagama talin deegaamadiisa sanad laga haysto lagama hadlin ergaabo lagama haysto lagama hadlin sheegashada Somaliland ay deegaamadan sheeganaysa lagama hadlin in maxay tahay ammaan iyo diris wanaag lagu noolaado lagama hadlin maxaabiista waqooyi bari laga qabtay in loo soo daayo oo 15 sano ee laga dadkii ay maamulayeen dadka xidhxidhaan iyo dadka 23
labada kun iyo labaatan saddexdii maxaabiistay qabteen dagaalada ku qabteenba oo shacab iyo askar bale inay soo daayaan ciidaba kama hadlayso maxaabiista Soomaaliland hal sii daayeen baa laga hadlay dawladda federaalka ka hadlaysa maamulka deegaanka kilka shanaad baa ka hadlaya xataa maaragtay Soomaaliland baa ka hadlaysa inaga lafteena baa maxaabiistooda uun ka hadlayna maxaabiisteena baa aan ka hadlay marka wax badan baa waxaad moodaaba in ayba isku luqunci baaran yihiin marka dadku nabad bay rabaan dadka Soomaaliyeed ama waqooyi had deganaadeen ama bari ama koonfur dadku nabad inay ku wada noolaadaan cid walbana deegaankeeda lagu ixtiraamo cidii dawladnimo iyo system iyo wax wadaagaysan iyagu heshiis ay wadaagaan cidii kalena ay ammaan kale helaan haddaanay waxba wadaagi karin laakiin waxaan isku luqunci baaranee cidba cid sheeganaysa ee leeso hanjabaye haddana ii soo daalehe wada siyaasadda ah waxa cidina nabad kuma helayso colaadun baa laga sii qaadaya marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu talada ina waafajiyo. Assalaamu calaykum.